nabad wacan daawadayaal, halkani waa Alkoonayn Media. ku soo dhowaada muuqaal kale oo xiiso badan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe dheh, muuqaalkana like saar. mahadsanid. Shiinaha waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah ilbaxnimooyinka ugu daada weyn taariikhda. horumarka ilbaxnimada Shiinaha wuxuu dib ugu laabtaa in ka badan 3,000 oo sano ka hor dhalashadii Nebi Ciise calayhi salaam. sida laga soo xigtay sheekooyinka taariikhaha Shiinaha, boqortooyadii Shai waxaa loo yaqaanaa boqortooyadii ugu horreysay ee Shiinaha, taas oo xukuntay qarniyadii labaad ee ka horreeyay dhalashada Nebi Ciise calayhi salaam. si kastaba ha ahaatee, boqortooyadii ugu xoogga badnayd ee ugu horreysay ee xukuntay Shiinaha waxay ahayd boqortooyada Shang, taas oo xukuntay qarniyadii 18aad ee ka horreeyay dhalashada ee xilligii biraha. wakhtigan farta Shiinaha ayaa soo baxday sanadkii 1720 ka hor dhalashadii Nebi Ciise calayhi salaam. qabiilooyin reer guura ah ayaa qabsaday Shiinaha oo aasaasay boqortooyada Zhou. inkastoo qabsadayaasha ay ahaayeen qabiilooyin reer guura ah, haddana waxay muhiimad weyn siiyeen beeraha, waxayna aasaaseen bulshooyin dhaqan dhisan. taariikhdu markay ahayd 800 oo sano ka hor dhalashadii Nebi Ciise calayhi salaam, boqortooyadii Zhou way dhacday. Shiinuhuna wuxuu u kala jabay qaybo yaryar oo dhexdooda dagaalamayay. si kastaba ha ahaatee, qarnigii 6aad ee ka hor dhalashadii Nebi Ciise calayhi salaam, fikir iyo falsafad horumar leh ayaa soo baxday, oo waxaa soo baxay iskuulo falsafadeed oo kala duwan. xilligan waxaa soo baxay Confucius oo ahaa aasaasaha diinta iyo falsafadda Confuciumka, taas oo si weyn ugu faaftay dhammaan Shiinaha. sidoo kale, qarnigii 6aad ee ka hor dhalashadii Nebi Ciise calayhi salaam, Shiinaha wuxuu bartay farsamada samaynta birta oo ay bilaabeen inay beddelaan biraha. qarnigii 4aad ee ka hor dhalashadii Nebi Ciise calayhi salaam, gobolka Ji ayaa xoogaystay, waxayna bilaabeen inay qabsadaan dhulalka gobollada kale ilaa ay awood u yeeshaan inay mideeyaan Shiinaha. amiir Jing ee gobolkaas ayaa qaatay magaca Shi Huangdi, oo macnaheedu yahay boqorkii ugu horreeyay ee Shiinaha midoobay. Shi Huangdi wuxuu noqday boqorkii ugu horreeyay ee xukumay Shiinaha oo midaysan taariikhda. xilligiisii ayuu Shiinuhu bilaabay dhismaha darbigii weynaa ee Shiinaha, oo ujeedkiisu ahaa in laga ilaaliyo Shiinaha weerarada qabiilada reer guuraaga ah ee waqooyi. xilligii Shi Huangdi, farshaxanka iyo dhismaha ayaa sare u kacay, taasoo ay caddayn u tahay xabaashiisa oo laga agdhisay kumanaan taalo oo ciid ah oo ka mid ah ciidamadiisa. taalooyinkaasi waxay ka mid yihiin in ka badan 10,000 oo shay oo qadiimi ah, oo dhammaantood ka samaysan ciid, oo metelaya ciidankiisii, fardihiisii iyo gaadiidkoodii dagaalka ee qaybta ka ahaa ciidamada Shi Huangdi. ilbaxnimada Shiinaha ee qadiimiga ah waxay gaartay heerkeedii ugu sarreeyay xilligii boqor Shi Huangdi, balse kadib waxaa yimid boqorro daciif ah oo Shiinaha dib ugu soo celiyey nidaamkii federaalka ahaa, iyadoo gobol walba uu yeeshay amiir u gaar ah. ugu dambayntiina, boqortooyadii way burburtay, waxaana bilowday dagaallo qaraar oo loogu tartamayo kursiga. xaaladdaasi waxay sii socotay ilaa sannadkii 202 ka hor dhalashadii Nebi Ciise calayhi salaam, markaas oo amiir Lu Bangi uu ku guulaystay inuu mideeyo Shiinaha oo uu aasaasay boqortooyadii Han, oo ahayd mid ka mid ah boqortooyinkii ugu xoogga badnaa ee soo maray taariikhda Shiinaha, taasoo xukunka haysay muddo 400 oo sano ah. waxa ugu muhiimsan xilligii boqortooyadii Han waxay ahayd ganacsiga. Shiinaha waxay isku fidiyeen dunida inteeda kale, ganacsigoodana wuxuu gaaray Hindiya, bartamaha Aasiya iyo Faaris. tan waxay ahayd bilowgii ka bixitaanka dariiqii ganacsiga caanka ah ee loo yaqaanay dariiqii xariirta, kaas oo uu ku faafay ganacsiga Shiinaha. xilligii boqortooyada Han waxaa la ikhtiraacay waraaqaha iyo sidoo kale lacagaha waraaqaha ah. diinta Buddha ayaa bilaabatay inay ku faafto. boqorradii ugu caansanaa ee boqortooyada Han waxaa ka mid ahaa boqor Wudi, kaas oo awooddiisa ay gaartay xuduudda Hindiya, Kuuriya iyo Turkistan. waxaa jiray boqorro kale oo muhiim ahaa, sida boqorkii lagu naanaysi jiray boqorka falsafadda ama boqorka dib u habaynta, kaas oo ahaa boqor Wong Mang, oo amray in la baabi'iyo addoonsiga iyo in la dowladeeyo dhulbeereedkii oo loo qaybiyo beeralayda yaryar, taasoo uu sameeyey sidii uu uga hortegi lahaa soo laabashada nidaamka feudalismka mar kale. si kastaba ha ahaatee, qarnigii 1 iyo 2 ee miilaadiga, boqortooyadii Han way dhacday, waxaana Shiinuhu u kala qaybsamay 3 boqortooyo. xilligaasi waxaa dhacay dagaallo qaraar oo u dhexeeyey 3 boqortooyo.
balse ugu dambayntii boqor Simayaan ayaa ku guulaystay inuu la wareego saddexda boqortooyo oo uu mar kale mideeyo Shiinaha sannadkii 265 ee miilaadiga. boqortooyadaasi waxaa ka dambeeyey boqortooyooyin kale oo isxigxigay ilaa sannadkii 615 ee miilaadiga. markaasoo Shiinaha uu aasaasay mid ka mid ah boqortooyooyinkii ugu caansanaa ee taariikhda, taas oo ahayd boqortooyada Tang. boqortooyada Tang waxay xukumayeen Shiinaha kadibna waxay galeen fowdo ilaa markii dambe Shiinaha mar kale la mideeyey sannadkii 960 ee miilaadiga oo ay qabatay boqortooyada Song. boqortooyada Song waxay sameeyeen isbeddello waaweyn oo Shiinaha ka dhacay. isbeddelladii ugu horreeyey waxay ahaayeen in awoodda laga qaado qoysaska aristokraatiga ah loona wareejiyo shaqaalaha dawladda, kuwaas oo loo xushay kartidooda awgeed. isbeddelka labaad wuxuu ahaa horumarinta diinta, iyadoo la mideeyey diinta Confuciumka oo lagu daray mabda'a Taoism iyo Buddhism, taas oo la magac baxday Confuciumka cusub oo noqotay diinta rasmiga ah ee dawladda. intii ay xukunka hayeen boqortooyada Song, Shiinuhu waxay heleen ikhtiraacka baruudda, fallaaraha magneetka iyo daabacaadda. qarnigii 13aad ee miilaadiga, Mongoolku waxay waqooyi kaga soo duuleen Shiinaha, waxaana hogaamiyahoodii Kublai Khan uu aasaasay boqortooyadii Mongoolka ee Shiinaha, taasoo ahayd boqortooyada Yuan. xilligii Mongoolku xukumayeen Shiinaha, reer galbeedku waxay bilaabeen inay bartaan Shiinaha, waxaana sababay safarrada ay sameeyeen qaar ka mid ah ganacsatada, oo tan ugu caansan ay ahayd safarradii uu sameeyey ninkii Talyaaniga ahaa ee Marco Polo. sannadkii 1368 ee miilaadiga, Shiinuhu waxay ceyriyeen Mongoolkii waxayna aasaaseen boqortooyo cusub oo ahayd boqortooyada Ming. intii ay xukunka hayeen boqortooyada Ming, gaar ahaan qarnigii 16aad iyo 17aad, reer Yurub waxay bilaabeen inay si aad ah u galaan Shiinaha, waxaana safarradooda ugu caansanaa kuwa ka yimid baadariyaasha diinta Kiristaanka oo ka socda kiniisadda Roman Catholic, kuwaasoo u socday inay ku faafiyaan diinta Masiixiga dhulka Shiinaha. sannadkii 1644, Manshuuyiintu waxay weerareen Shiinaha waxayna aasaaseen qoys boqortooyo cusub oo la yidhaahdo qoyska Jing, kaasoo maamulayay ilaa sannadkii 1912. intii lagu guda jiray xilligaas, saamaynta Shiinaha ayaa kordhay, waxayna ku fiday Tibet, Mongolia iyo bartamaha Aasiya. intii lagu jiray qarnigii 18aad, Shiinaha si weyn ayuu hoos ugu dhacay. sababtuna waxay ahayd kororka tirada dadka oo aan lala socodsiin kobaca wax soo saarka beeraha. tani waxay keentay kacdoonno iyo macluulo badan oo daciifisay maamulkii qoyska Jing. wakhtigan, saamaynta Yurub ee Shiinaha aad bay u yarayd, oo xukuumadda Shiinaha waxay hoos u dhigtay xiriirka ay la yeelanayso reer Yurub, iyagoo u arkayay inay ka liitaan. inkasta oo Shiinaha uu u dhoofiyo shaah iyo xariir badan Yurub, gaar ahaan boqortooyada Ingiriiska, Shiinaha wax yar ayay ka soo dhoofin jirtay Yurub, waxayna ku qasbanayd inay reer Yurub lacag ku beddelato lacag bir ah. xilligaas, boqortooyada Ingiriisku waxay ahayd quwadihii ugu xoogga badnaa adduunka, waxayna xukumaysay Hindiya. sidaas darteed, boqortooyada Ingiriisku waxay samaysay qorshe xun oo ah inay ka beeraan daroogada afyuunka gudaha Hindiya oo ay ku fidiyaan Shiinaha si ay u dheelitiraan ganacsiga labada waddan. qorshahan Ingiriiska ayaa guulaystay, daroogada afyuunku si weyn ayuu ugu faafay dadka Shiinaha, waxayna malaayiin qof oo Shiinays ah noqdeen kuwa ku tiirsan afyuunka. tani waxay sababtay masiibooyin dhaqaale iyo bulsho oo ka dhacay Shiinaha, waxaana bilowday dagaalkii afyuunka ee u dhexeeyey Shiinaha iyo boqortooyada Ingiriiska. 3 dagaal ayaa ka dhacay Shiinaha iyo boqortooyada Ingiriiska, iyadoo Ingiriisku guulaystay wuxuuna ku qasbay xukuumadda Shiinaha inay soo dhoofiso afyuunka, waxaana boqortooyada Ingiriisku la wareegtay dekedii ugu muhiimsanayd Shiinaha, oo ku taalay magaalada Hong Kong. Shiinaha oo ahaa boqortooyo weyn oo madax bannaan, waxaa gacanta ku dhigay quwadihii waaweynaa ee reer galbeedka, sida boqortooyada Ingiriiska. intii u dhaxaysay 1851 ilaa 1854, dagaal sokeeye oo ba'an ayaa ka dhacay Shiinaha, taas oo sababtay inay ku dhintaan malaayiin qof. bilowgii sannadkii 1894, dagaal kale oo burbur baan sababay ayaa ka dhex qarxay Shiinaha iyo Jabaan si ay ula kala wareegaan gacan ku haynta Kuuriya, laakiin dagaalku wuxuu ku dhammaaday jabkii Shiinaha. sannadkii 1912 waxaa dhacay kacdoonkii Shinay, kaas oo meesha ka saaray nidaamkii boqortooyada kuna dhisay jamhuuriyadda Shiinaha, waxaana boqor Buyi uu noqday boqorkii ugu dambeeyey ee Shiinaha oo ka tirsan qoyska Jing.
Jamhuuriyadda Shiinaha waxay la kulantay labadii dagaal ee dunida koowaad iyo labaad. Kadib dagaalkii labaad ee adduunka, Shuuciyiin ayaa la wareegay Shiinaha waxayna dhiseen Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha sanadkii 1949, waxaana hogaamiyey Mao Zedong uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee jamhuuriyadda cusub ee Shuuciga ah. Dowladda Jamhuuriyadda Shiinaha ee hore ayaa u guurtay Taiwan, taasoo Shiinaha ka dhigtay laba dowladood oo kala ah Dowladda Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha oo ka jirta Shiinaha iyo Dowladda Jamhuuriyadda Shiinaha oo ka jirta Taiwan. Shiinaha waxa uu bilaabay siyaasadda dib u habaynta iyo furfurnaanta caalamka xilligii madaxweynihii Xi Jinping. Shiinaha waxa uu bilaabay inuu si la yaab leh isu hormariyo, waxaana uu isku beddelay inuu noqdo mid ka mid ah quwadaha dhaqaale ee ugu waaweyn dunida. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan nagu soo biir haddii aadan horay noola joogin. Mahadsanid.